Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka dalka ayaa sheegay in dowladdu ay ka shaqeynayso midnimada dalka xilli maanta ay ku beegneed 58 guuridii ka soo wareegtay markii gumaysigii Ingiriiska ay ka xoreeyeen gobolada waqooyi. Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa xusay in halgan dheer loo soo galay xorriyadda iyo midnimada dalka haatan ay tahay in arrintaasi aan la dayicin. inta aan ka warqabo Maxamed Xaaji Ibrahim Cagaalo Allah yarxame ka sheekeynayay markii 49 sida aan jecelahay 47 ay yimaadeen la kulmeen baarlamaankii waqtiga ee daakhiliyada iyo siyaasiyiintii koonfurta SWL madaxdoodii xisbiga xaruntiisii waxa ay la guriga noqdeen in marka xorriyadu dhacdo ay u tabaabulshaysanayaan midnimo dareenka waqtiga jiray midnimada waa ka keenay in la yiraahdo si buuxda oo Soomaalinimo oo mid ah oo bilaa shuruud ah waa in loogu ambabaxaa midnimada shanta cisho 26 Juun iyo 1 July shacbigu waa mudaharaadeen waxay u soo baxayeen midnimo baan anagu rabnaa waa in midnimo la keenaa waa in la midoobaa marka waqtiga wuxuu baa laga shaqeynaya 4 cisho gole wasiiro 5 qof ka kooban ayaa Maxamed Cabdi Ibrahim Cagaalo dhisay in marka 1 July ay gaadho ay yimaadaan xamar la isku daro labadii baarlamaan la mideeyo dawlad iyo xukuumad iyo mid ah la abuuro taasina mararka qaar sida documentary filmyadii waaga laga duubay aynu ka arkayno waa ay dhacday 60kii sidii baa lagu midoobay 26 Juun 1 July ku asteysantay maalintii midnimada waxay la tahay u dabaaldega iyo xuska 58 guurada ka soo wareegtay maalintii xorriyad la helay ee calan Soomaaliyeed laga taagay dhul Soomaaliyeed in aynu maxaynu kororsanay maxay haysanaa maanta xorriyadda aynu haynaa qiimaha ay ku fadhiday abayaashin raadinayeen ee dhiigu ku baxay ee dad ku dhinteen ee dad loo xiray ee tacaddi loo geystay qiimaha ay ku fadhidaa intay leegtahay maanta inaga xor ah Soomaali ah haburbura dalku 19 intii ka dambeysay maxaa maanta aynu qabsan karnaa sida uga sii amba qaadi karnaa midnimadii 60kii dhalatay iyo maanta oo ay noognahay Somaliland inay maqan tahay tabashooyin jira awgoodna dadkii xorriyaddii 60kii keenay ay midnimada Soomaaliyeed hormuudka u ahaa asaaska u ahaa ay tabanayaan sidee lagu dabiibi karaa midnimadii 60kii ee la yagleelay maxaa maanta ay Somaliland ku maqan tahay maxay tabanayaan waa inaan dhageysanaa dareenkooda waa inaan dhageysanaa afkaarta ka guuxaysa waa in wada hadaladii madaxweyne Shariif bilaabay Axmed Xasan Sheekh si hana qaaday madaxweyne Farmaajo ka go'an siyaasadiisa uu dalka ku hogeeyay qayb weyn ka ah markii la doortayna ballan qaaday sidii aan u dardargelin lahayn